الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 31 حديث كو صدنات وكتاب الأربعين كمده عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. حديث كان نين ليرهدو أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ليرهدو أي حديث كان وريي أنصار غير أنصار أيو كمدها نين كان مجلس بحال لديه جري حزن على لديه جري، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مجلس أبدلي سهل أبدلي. نعم، سهل بن سعد أيام نبينا أبدلي marka ninkaas taariikhdaas uu leeyahay Madiina ayuu ku dhintay sanadkii oo markuu ahaa hijriga 88. taas waxay tusaysaa inuu markiis aad u dheeraaday. ninkaas xadiidka noo wariyay wuxuu yiri jaa rajulun ila nabiy sallallahu alayhi wasallam, jaa rajulun nimba u imaaday ila nabiy sallallahu alayhi wasallam, nabiga u imaaday. faqala ninka wuxuu yiri: ya rasuulallaah, rasuulka allow, dullani itus oo ibar calaa camalin camal oo idaa camiltu haddaan ku camal falo axabbani illaahu ilaahay i jeclaanay wa axabbani innaasu dadkan i jeclaanayaan. arrintaas ibar oo rasuulka allow. faqaala calayhi asalaatu wasalaam, nabigeena hoo yidhi: izhad fi dunyaa, adduunka ka zaahid, yuxibuka allah, allah ku jeclaanaya. wazhad fimaa cinda annaasi, dadka wahi agtood ahaadayna ka zaahid oo ka jeeso, yuxibuka annaasu, dadkaa ku jeclaanayaan. xadiithun xasan. xadiidkan ninkan saxaabigan jaliilka nabigeena calayhi salaatu wasalaam noogu soo wariyey wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninbaa u imaaday. nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninbaa u imaaday. ninkii wuxuu yidhi: rasuulka allow, ibar oo itus camal haddaan ku camal falo ilaah i jeclaanay, dadkan i jeclaanayaan. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaa waa u kala cadeeyey ilaahay saybaa dad kugu jeclaanaa, dadkana sayba kugu jeclaanayaan. izhad fi dunya, adduunka ka zaahid buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam. yuxibuka allah, ilaahay ku jeclaanaya. zaahidnima adduunka laga zaahido waxaa la yidhaahdaa adduunka laga zaahido maaha adduunka dhexdiisa inaad ku zaahid ku noqoto. waxaa loo jeedaa ruux in qalbigiisa iyo dhammaan iyo camalkiisa kulli oo u jeesto alla subxaanahu wa tacaala. alla ralihiiseed ku gaarta, daartii aakhirseed ilaahay ralihiisa ku hesha, cadaabkiiseed ugu badbaada. adduunka inuu gacantiisa hataa ha ku jire, laakiin adduunka inuu niyadiis iyo dadaalkiis iyo fikirkiis iyo hamigiisa qalbi adduunka ahayn, hamigiis aakhira u yahay. laga yaabo ninkan xoolo waa lahaan karaa, caruur iyo ehl waa lahaan karaa, laakiin waxaaway qalbigiisa waxaaway adduunkan lama jiro. hu og yahay daartan daard ka weyn oo ka fiican alla agtiisa waxay ahaaday ayaa qofkan qalbigiisa ku xiran yahay. adduunka dabba agtiisaba shilin iyo qaar waxay dhahayaan adduunka laga zaahido waxay lama tahay. waayo dad qaar waxay dhahayaan dahabka iyo dhagax agtiisa qofka inuu ka sanaadana zaahidnimada kaamil ee la yiraahdaa. ala ayatiha qasidka waxaaway qofka oo qasadkiisa dhan, hamigiisa dhan, dadaalkiisa dhan ku dhisan alla ralihiisa raadinteeda, daartii aakhira raadinteeda, camal wanaagsan ilaahay ugu dhowaanaya oo raadinaya, cadaabka alla seed ugu badbaada, cadiseed ugu badbaada ku dhisan tahay. kaasaa zaahid yiraahdaa. adduunka agtiisa qiimo ku lahayn. adduun iyo aakhira hadday isu imaadaan aakhar horumarinay, tii alle iyo tii dadka hadday isu imaadaan tii allihiisa horumarinahay. kaasaa zaahid yiraahdaa. haddii xaaladaas sidaa noqoto, sifadaas aad ku sifowdo, ilaah baa ku jeclaaday caza wajal. nacam, dadkana say kugu jeclaanayaan wahi ay gacantooda ahaaday. faraha ka qaad, hadda macid ha kula jiitamid, ha kula tartamid,
فرها بقات أسلم أكتوض وهي هذا وح قيمة له ما هي إله عز وجل وح يعني كجرا وح كستكوينه وهي أتصنيسد إله هذا كأتصو وهي أتفادليس الله هذا كرهتسو الله هذا كتير سنة جل جلاله بني آدم بقيمة أكتر يأكل هانين marka saasa loo jeedaa marka dadka bani aadamka mar hadii adag waxood u dhaafto oo ku jeclaanayaan oo ku qiimeynayaan oo ku heshmeynayaan maxay leeyahay wax ma su'aalinaysid wax ma ka doonaysid ma la tartamaysid oo wax ma laba qabsanaysid marka waxa tahay in shaaf leh ayaad noqonaysaa zaahidnimada oo dadka wahi gacantooda ku jira laga zaahidana taas ay keenaysaa ilaahay jecelkiisna adduunka zaahida lagu helaya dadkana jecelkooda waxa lagu helaya وهي أكتر هذا لقى الزاهد أو لقى جيستو دم لقى قلن تاسع لقوا هلا النبي عليه الصلاة والسلام صحابة وهي هاين رضي الله تعالى عنهم وهي هاين دا آدي هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويدين جرين ورسيان سؤال وجيدين جرين وهي آخر ذو كل اسميسو آخر ذو إله أكتي استخليه سكوجار أي آد ويدين جرين وكل ذلك جرين نبي عليه الصلاة والسلام لك جوابتي أو مناسب كه أيام مركا أيام نبي عليه الصلاة والسلام ذاتك السينجري رضي الله تعالى عنهم أصحابتي أيو سينجري نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان مركا وهو نقول وهانو عدينا يا لبا حالضات وآديات وين وآديات قيمة بدن أبدن إلهي أكتي سبحانه وتعالى اللي اسمها لغو هلا جعلك اسمها لغو هلا يا أدون كان قيم أكتر يأكل هاني داتك سيكو جعلانا يا ومربع هديدات يأكل أربتدنا وهي أيغا قعنده كوهايان كالزاهدة لين عن أبي العباس أبي سمح لك الشيء سهل بن سعد الساعدي هر ساعدنا اللو نسبه قال وهيري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي أو إماذي فقال وهيري يا رسول الله رسولك قال دلني اتس على عمل اتس إذا عملته حتى أنكو عمل فلو أحبني الله إله إجعلانه وأحبني الناس تذكر إجعلانه فقال عليه الصلاة والسلام هيري ازهد في الدنيا أدونك كالزاهد يحبك الله كجعلانا يا وزهتي ما عند الناس وإذا تقعنت كوهايان كزاهد يحبك الناس ودتك كجعلانا حديث حسن ويا رواه ابن ماجه أيوري وغيره أيوري بأسانيد حسنة أيكوري نعم عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله وستي ما عند الناس يحبك الناس حديث حسن واي الله سبحانه وتعالى حقها نوافجيه خير أي خير أدن خير آخر الله النسيه لها سبحانه وتعالى دنبغين دم والكين الله ضعف سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك